marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo taliyayaasha iyo saraakiishii suurto gelisay in aan caawa halkan isugu nimaadno iyadoo tababarkii la idin soo gabagabeeyeyna aan halkan isugu nimaadno. marka labaad waxaan idinkugu imid inaan idin caddeeyo inaan raalli ka ahay shaqada halkan ka socotay. waxaa kaloo idinkugu imid inaan idinla dardaarmo. waxaan marka hore idinkaga mahad celinayaa inaad tihiin wiilal Soomaaliyeed oo u soo istaagay inay qarankooda difaacaan, aaminay inay cadow ka xoreyn karaan, raba sidii kuwii xorriyadda dhaliyey in dadka idinka dambeeya aad uga tagtaan nolol ka wanaagsan tan hadda idinku aad ku jirtaan. anigoo ku hadlaaya magaca shacabka Soomaaliyeed oo dhan ee kan dawladda, waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo inaad dhiiggiina soo qadinteen si aad dalkiina u xoreysaan. waa mahadsantihiin. caawa waxaad diyaar u tihiin tababar dheer kadib safar inaad u baxdaan mar dhow. safarkaas oo ah mid laydinku khasbay inaad samaysaan si aad dadkiina u difaacdaan. safarkaasoo macnihiisu yahay dad badan rajadooda idinka idinku xiran tahay. sababta uu wadani dhib uga baxo waa in qof ay aqbasho inay nafteeda hurto. idinku waxaad tihiin kuwii tallaabadaas soo qaaday. waayahan xeradan waxaa ka socday tababaro isdaba jooga dhalinyaraha idinka horreysay idinka colol badan oo baxay oo maanta fadhiya goobihii ay cadowga ka qabteen oo dadka Soomaaliyeed nabad ku nool yihiin. idinkana kuwa idinka dambeyn doona. laakiin waqtigii la soo dhaafay waxaa muuqata horumar weyn oo ah inay soo dhowaatay guushii. dawladda Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna inay soo xeegeysanayaan cadowgii dadka Soomaaliyeed dhibaateynayana uu daciifayo. wiilashii halkan ka tegey oo iyagana aan ku soo salaamay oo idinka horreeyey shaqadooda way ka soo baxeen. meelihii ay tageen iyagaa haya, dadkina nabaday ku nool yihiin. idinkana sidaasaan rajeynayaa iyo si ka sii fiican. waxaa kaloon rabaa halkan inaan idinkaga caddeeyo in dawladdiinu idin garab taagan tahay. meesha aad tagtaan aan laydinku ilaaweyn, biyaha laydinka daba qaadi doono, mushaarkiina bil walba aad helaysaan, xaquuqdiina caafimaad la sugi doono, laydinku ogaan doono meesha, xaquuqdiinana lasii hagaajin doono haddii ilaahay yidhaahdo. waa laga baxay waktigii askari Soomaaliyeed oo dalka u dagaalamaya aan xaquuq la siinayn. waa ku dadaalaynaa xuquuqdiina oo dhammaystiran mar walba inaad heshaan. waa laga baxay waktigii askarta ciidanka iyo dawladdooda loo dhexayn jiray. waa laga baxay waktigii dad la idin soo mari jiray. nidaamkii waa idin degsan yahay, shaqadii waa idin socotaa. idinkana waxaa la rabaa cadowga inaad sii riixdaan ilaa aad ka cirib tiraysaan. annagana waxaana la ka rabaa xuquuqdiina inaan sii wanaajino. ma aha inaad weysaan, waxaa la rabaa inaan sii wanaajino. markaan arko wiilal Soomaaliyeed kowdii habeennimo oo diyaar garoobay, waxaan keliya ku qancayaa dalkeena inuu rajo leeyahay. waxaan keliya oo aqbalayaa in waktigii farxadda ay soo dhowdahay. waxaa keliya oon aqbalayaa in mustaqbalkeena uu soo wanaagsanaanayo. waxaa keliya oon aqbalayaa in Soomaaliyadii loo soo ordi jiray ay soo dhowdahay. waxaa kaloon caawa xaqiiqsanayaa wejigiina markaan arko mar labaad inaan ku soo celiyo inuu muuqdo iftiinkii soo laabashada wixii la dhihi jiray libaaxyadii Afrika. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaaradda Afrika wuu ka tilmaanaa.
wiilasha Soomaaliyeedna Afrikada kale way ka tilmaanayaan dunidana waa laga yaqaanay wiilashii idinka horeeyay oo halkan ka tagay meelihii aan geynay iyo idinka iyo talaabooyinka dalka ka socdo ciidamada xoogga dalka ay ka shaqeynayaan marka aan arko hooyo walba iyo aabbo walba oo Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan ku dhiiran karaa inaan iraahdo adkaysta guushiya soo dhow idinkana waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu